الله عليه وسلم أن كهنونو أو أن أجهنونو ضلالك يا باطل سياسة نكسودي لكن قرمان كهنونين كتاب القرآن كها إياه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قرمان كهنونين وهم كهنونين marka aan u qaadano u fahano siday u fahmeen dadkii alle amaanay nabiguna uga marqaati kacay qayb fiiri saxaabada ilaahay amaana nabigeena subhanahu sallallahu alayhi wasallam raacidooda in dalaalka looga badbaado noo sheeg rabbul alamin wuu amaanay dadka raacana jam u ballan qaado nabigu sallallahu alayhi wasallam saddex qarniyo si gooniyo fadli ugu sheegay saxaabada تابعيالك أتباع التابعين بدكاسو سي غوري وأمان أو شيغي إني غير غوري إيا سنة غوري كسوغيين مركا قرآنك إيا سنة با وحن كوهنونينا مركا نفهنو أرددي نبي محمد وحكبر تيسيد نفهمين صحابا تابعيالك أتباع التابعين بدكاسو سيدا نفهمين مركا قرآن سببتو أيجا الله خالي كان نغضي صحابا بدكر عن الله خالي كان نغضي في القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار أنصار المهاجرين إيا بدك وناد قودي راعة بدكاس إلهي رالك النغض فيري بدكاس إلهي رالك النغض فيري إذا راعة الله رالك النغض إلهي الإيمان وغمقاتك عن أنصار المهاجرين إيمان أولئك هم المؤمنون حقا وإلهي أنصار المهاجرين نبينا صوبان صلى الله عليه وسلم وهو كم مرقاتك أي أوبا مرقاتك أي ولاد يا خيرية صدح لقرنية أبوه إلى أمضى وصحابتي وتابعينتي يا أتباع التابعين قرون المفضلة صدح لقرنية أبوه إلى وحن مرى إن أنك هذا قرن يشل يطرناد حديثا كجرنا وهجرياني نبينا صوبان صلى الله عليه وسلم كن يعفر بقل iyo soddon iyo laba sanaan anagu sanadii ugu dambeeyay ku jirnay fiiri kun iyo afar boqol iyo soddon iyo laba sana laga mara saddexdii qarniyo ugu horeeyay nabigu khayr uga maqaati kacay oo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam khayru naas qarni dadkoo dhan waxa uu khayr badan qarnigayga sadka joogo thumma alladina yalunhum waxa ku xiga kuwaas ku xiga waa tabiinti iyo atbaacu tabiin kama thumma alladina yalunhum waxa ku xiga qolada ku xiga كذب النبي صلى الله عليه وسلم الشرق وكتب من ذلك إيمانه ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وحديث البخاري باسمه يال كذب وحي ما دونا ضد واحد دارتود أي مرقاتب وذكوه خير انت يسوى حويان مرقاتك ودارنا يال معناها ميزان العامة كنتو صيدا ميزان العامة هي دوس العامة marka dadkaas raacidooda dalaalka looga badbaada si gooriyana nabigu u sheegay sallallahu alayhi wasallam xadiis al-iftira oo xadiisku nabigu uga waramay sallallahu alayhi wasallam waxa weeyaan tafarqu ummadan ku dhacayo ee nabigeena subhan sallallahu alayhi wasallam uu sheegay wax lagu badbaadayo markuu yiri iftaraqat al-yahud ala 71 firqa yahud waxay u qaybsantay waxa weeyaan 71 kooxo وافترقت النصارى على 72 فرقة نصارى وحي أقيب سنتي تضرات يلابو ونمكي النبي إنساني راعين شاكتي وستفترق هذه الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقيب سمي سعيدنا ما يقيب سمي إلى 73 فرقة تضرات يصدح النقايب نصارى دي فرقة سيديرانية كلها في النار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرقة صوتان نار تيحالي معناها نار المبتين والعذاب عن يضمان نار المبتين إلى يطودنا وعذاب ضدنا وعفير لكن نار المبتين الضلال يكون حيوي سومتي محاك دبادي إلا واحدة هل ميدان بالدالي وأن نار تاسك بالدالي وكو أدون كالضلال كبالدالي ييطحي هي التي تكون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي وقرر كسونا تآكل الزمان كما markay dadkaas baadiyoobayaan waa qorada ku sugnaata aniga iyo saxaabadaydu waxaan ku suganay fiiri nabiga aniga waxaan ku suganay kaliya madii sababtoo ah saxaabadu waa dadkii ka fahmay nabiga diinta sallallahu alayhi wasallam ee fasiray haddaba intaas kadib maxaa noo muuqata walaalayaal waxay tahay diinta qof walbaaba inuu ku dadaalo inuu u fahmo ugu dhaqmo siday u fahmeen saxaabatu rasuulillah sallallahu alayhi wasallam siday u fahmeen
taabiciyaalkii saxaabada ardadoodii siday u fahmeen atbaacu taabiciinta ardadoodii quruunul mufadala saddexdan qarniya nabigu khayrka ku tilmaamay ee loo yaqaana salafu saalix kuwaas siday u fahmeen kadib balaalka iyo inxiraafka iyo balaayadu tiri saasaa badbaada ku jirta waxaadna ogaataa dadka iyo banu aadanka ilaahay waa kala duwan iyo xoolaha wax aan la siin adiga lagu siin indhahan iyo dhagahan caqliya lagugu daray adiga caqligan waa midka keenay inaad